أنا نودون برقد يوسف حرسي كسو جدا قوال كمبري وحان آد أسود دوينا يا بيق قوانك حالي أي صوت صارتي وحان آد أغفر أحسننا هاي ما دابا إفتين نوب بحي إفتين كي نوب بحينا إنان كو حمد النغنو إلهي مهديسة ذاتك الشعب كان وحان ليه هاي ما انتابع وارفرح له بينو حيصنا dadku waxa fiican maanta nin walba codkiisa inuu ku cilbaxo magacayga waxa la yiraahdaa Sadiq Gaasho Ismaan oday Puntland wax badan ka soo qabtay ilaa ay ka soo shaqeeyay 1998 urashadeedii xitaa waan taagnaa waan joogay qolkiiba 95 waxa lagu soo qabtay doorasho 3 iyo 30 degmo ah baa la soo maray waxa harsanay waa boqolkiiba 5 shantaas miyaa loo afxiraanaya maya dalku waxaan rabaa inuu doorashada nin walba wax ka helaayo oo rabo oo soconaysa raga aan waligood bixiloodin inay city councilka ka mid noqdaan ba hadda noqday ayga marka waxa la yiraahdaa Abdullaahi Faatax Maxamuud Ciise baa la yiraahdaa gobolka Bari baan joognaa waxaan maartay soo dhaweynaynaa oo aad ugu faraxnay beek waxa natiijooyinka ay soo saareen oo ay gaareen aad iyo aad baan u hambalyeeynaa ugu faraxsanahay maxaa yeelay sida la socotaan reerku waa guuray wuxuuna u guuray geediga caanal anagoo ka faa'iideysanayna insha Allah bidmilaahi karayaan doonayna insha Allah in horay loo socdo oo aan dib loo noqon sida ay guddigu soo saaray teeda labaad waxaan leenahay in badan baynu sugaynay geedi caalin badan baynu sugaynay haddana waan helnay magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Ciise Xaaji Maxamed wuxuu ku jiray doorasho awal 66 oo 25 sano lagu jiray oo aan wax horumar ah aysan lahayn mudane Dr. Saciid Cabdullaahi Dani kal hore ayuu wuxuu dadka u diray doorasho qof iyo cod ah dadka reer Puntland waxa ila tahay in ay u faa'iido badan tahay qof iyo cod dimuqraadiyadaas dalka loo bilaabay dimuqraadiyadaas hayro ku socoto injineer Cusmaan Salaad beeg go'aanka ay soo saartay aad baan u taageersanahay sababtoo ah waxa weeye anaga awalba waxaan taageersanaa one man one vote kan taageersanaa ma ahayn sigiiska aanu ma taageersanayn ummadda muddo badan bay ku jirtay Puntland intaasoo sano dhisan tahay waa hooyadii intaasoo sano iyadoo dhisan baa waxa la rabay isbedelka inay mar hore bilowdo haddii isbedelkii la bilaabay kharash baa galay doorashada meelo badan bay ka dhacday magacay waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Nuur Xasan waa ganacsade Cabdiqaadir Nuur Xasan isbatoora la leeyahay shacabku wuxuu fiican dimuqraadiyadda inay codkooda soo doortaan sababtoo ah waxa weeye 66ku waxay gacanta ugu jiraan hal shakhsi laakiin dimuqraadiyaddu macnaha xukunkii baa la balaariyay adduunka waxa lagu jiraa akhir zaman asbuucii bilbun bishii asbuuc bay noqotay maalintii wax garanaysaa saacad bay noqotay wax dhibaataa ma jiraan laakiin shacabka reer Puntland waxay jecel yihiin maadaama 66kaas uu dhibaato weyn iyo dibudhac waddankan ku yimid inay ka gudbaan magacayga waa Shirwax Shirax Ibrahim waa ku faraxsanahay inaan ra'yigayga ka dhiibto saaka warqadii xalay soo baxday oo beeg soo saartay doorashada one man vote waa muhiim waxay muhiim u tahay waddanka shacabku inay iyagu doortaan qofka ay rabaan waa la soconay 2020 waa la bilaabay markii la bilaabay xisbiyadu waxay u sameysmeen inay doorasho one man one vote وحسبي والله كسب عصامة حسبي وسمس ما جري إنه لحن حلمان وكسب بحو اسم الله بتوعنا مرهبين مركدين ما أنت مركي وقت جوا مريسي مال في عمريسي إن إني راهنه لحن الله بتوع ما صرت جلسه. أحمد عيد يحيى عبد الله عبد الرحمن إسماعيل كنا البرشة كنا مجال البصاصات وحنقول بقى يا دبوينها بدلان هذا اللي حيتها لسوق مركن وحلا ولا تجابه عسل وضلك في عن ونوه البوحد كيسوق البحاج معها واحد عاد لقابا كان يا مهبين وسو حلا يا معها واحد عد كاجا عاد كوعيد بحيث هنا وحنقول بقى ينو وضو بقى قاس وضو نني عد كا وانا قرا عسنهي سوين وانا قرا عسنهي انا عد كانوا كوعيد بحنو وانا قضي دنبئي نين دنبئي قضي وكان واحد نو سميه دنبئي نغا حدو وأنا ضلكنا معمولنا هدانو نها شعبك نين كانوا كيسنو نو حكمه نين كانوا ربين هل كان جمره وحنا يا برشلو
وأنا أقول ستا لحدنا يلحدوا واحد فائدة ولا إذا مره سواء عرقنا مركن ونني يعد وأنا تاجر سنة